Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maalin kale wanaagsan. Dadka ku nool Muslimiinta oo dhan iyo dadka Soomaaliland ku nool. Waxaan halkan idinku sheegayaa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo kale. Ballanta Ilaahay qaaday weligeed way dhacaysaa. Waan ogaa markuu ninkii Donald Trump uu lahaa waxaan qaadanayaa Gaza inaanay dhacaynin qalbigeyga Ilaahay baa ballan ugu qaaday dadka Gaza ku nooli. Falastiiniyiintu inay ku noqonayaan masjidka iga dambeeya ee Al Aqsa. Xalay toole markii uu iswalwaalayay Trump uu lahaa dhulka waan ka qaadanayaa masaakiintaas Gaza. King Cabdalle uu la joogay halka shirkeed ogeydeen. Dad badan baa cadhooday ka xanaaqay. Anigu laakiin waan ogaay qalbigeyga wallaahi waan ka ogaa inaanay taas dhacaynin because Ilaahay baa ballanta qaaday inaynu ku noqonayno masjidka Al Aqsa ee muslimiintu ay ku noqonayaan wadankoodii. Marka xalay ninkii markuu la joogay King Cabdallah uu shir kala galay qarsoon ee qolka dambe 20 minuut uu la joogay buu ka dhaadhiciyay uu ku yidhi dadkan ma guurayaan halkan baan ugu hagaajinaynaa wadankuna naga hagaajinaynaa. Marka ninkii Donald Trumpna wuu ogolaaday inay joogaan dadka Gaza wadankooda carabtana dhisaysa. Warka wanaagsan ayaan doonaya intaanan seexanin inaan idinla wadaago. Ma guurayaan dadka Gaza jooga. Insha Allahna kulligeen yaa lehiin kulligeen insha Allah waynu tegi doonaa markii Ilaahay ka dhigo masaajidkaasina ku tukan doonaa isagoo free xor ah. Maasha Allah. Wassalaamu calaykum. Somaliland guul bay gaadhay. Somalilandna guul bay gaadhay. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan kale doonayaa halkan idinka sheego arrin kale oo Somaliland ku soo socota oo guul oo aad iyo aad u weyn. Marka iminka sheegi maayo ninkii Fariidina oo garanaya doqonna loo sheegi maayo. Ma doonayo dadka cadowga inagu ahay inay adduunka ka daba qayliyaan. Arrin wanaagsan oo Somaliland ku saabsan oo aad u weyna way soo socotaa laakiin iminka sheegi maayo. Marka arrintu ay hirgasho ayaanu wada dabaaldegi doonaa. Habeen wanaagsan. Assalaamu calaykum.